maamulka iyo macallimiinta wax ka dhiga dugsiga sare ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay tilmaameen in iskuulkaasi uu qarka u saaran yahay in gabi ahaanba albaabada loo xiro kadib markii ay tilmaameen in wax kaalmo ah ay ka waayeen jaaliyadaha dibadda aqoon-yahanada iyo waxgaradka ku nool degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. macallimiintan ayaa waxa ay sheegeen in ardada qaybta ka ah iskuulkaasi si lacag la'aan ah ay wax ku bari jireen. warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Saalax Idle. Afgooye Primary and Secondary School oo ka mid ah iskuulada ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waqtina ka mid ah iskuulada ugu faaca weyn degmada tani Afgooye ayaa imikani waxa soo wajahay maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda halkaasi wax ka dhiga dhaqaale xumo aad u liidata maadaama aysan jirin cid iyagu hadda gacan qabata taasina imika iskuulku ay u keeni karto inuu gabi ahaanba burburo iskuulka. maraan maanta booqday xarunta dugsiga hoose dhexe sare ee Afgooye ayaa waxaan halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah macallimiinta iskuulka iyo ardayda wax ka bartay iskuulkaasi kuwaasoo iyagu ka hadlay dareenkooda ku aadan marxaladda imika iskuulku dhex maqorayo iyagoo oo baaq u diray jaariyada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka dibadiisa gaar ahaan kuwa ka soo jeeda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda. bismillahir rahmaanir rahiim anuu magacaygu bilaabay Maxamed Macallin Umar ee ku nool degmada Afgooye gaar ahaan ka tirsan macallimiinta dhiga dugsiga hoose dhexe sare ee Afgooye. halkan waxaan ugu baaqayaa jaaliyadaha Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogaan in dugsiga hoose dhexe sare ee Afgooye ubadka wax lagu barayo in lagu bara si volunteer. macallin ka tirsan macallimiinta iskuulka Afgooye iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Afgooye waxaan halkan baaq ugu dirayaa jaaliyada ku dhaqan dalka dibadiisa dhammaan meel walba ay dunida ka joogaan in ay iskuulka dugsiga sare ay wax u qabtaan. dhigta iskuulka Afgooye Primary and Secondary School galaaska form 4 waxaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ka codsanaynaa meel walba ay joogaan in ay wax noo qabtaan. maamulka guud ee dugsiga Afgooye ayaan kala sheekaystay xaaladda imika dugsigu ku sugan yahay isagoo ay xaqiijiyay in macallimiinta qaar dugsiga aysan wax mushaar ah ka qaadan muddo dhowr bilood ah taasina imika ay keeni karto in burbur ku yimaado dugsiga Afgooye Primary and Secondary School u diray jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa. arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli iskuulku uu soo maray marxalado aad u fara badan haba ugu badnaatee sanadadii 2012 ilaa 2014 iskuulku uu ahaa mid gabi ahaanba aan shaqaynayn oo xero ciidan ahaa. Maxamed Ila Saalax TV-ga caalamiga ee Somali News degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose.